madaxweynaha dalka Turkiga Rajab Tayyip Erdogan waxa maanta oo Jimco ah uu cafis u fidiyay ilaa iyo 7 sargaal oo ka tirsanaan jiray ciidanka militariga ee dalka Turkiga kuwaas oo lagu xukumay xabsi daa'in kadib markii xukunka ay ka tuureen dawlad islaami ah sanadkii 1997 jeneraaladan hore ayaa waxaa la sheegay inay da'dooda u dhaxayso 70 ilaa 80 madaxweynaha dalka Turkiga ayaa salaadii khudbada kadibna maanta cafis u fidiyay arrimo la xiriira dhanka caafimaadka iyo maadaama ay yihiin dadkan sidaas ayaa lagu cafiyay sida lagu sheegay go'aan lagu daabacay faafinta rasmiga ah ee dalka Turkiga gelinkii dambe ee maanta maxkamadda ayaa waxay ku xukuntay jeneraaladan xabsi daa'in sanadkii 2018 kadib markii lagu eedeeyay doorkii ay ku lahaayeen olole ay hogaaminayeen ciidankii cilmaaniga ee dalka Turkiga waxaana ay ku qasbeen inuu iscasilo ra'iisul wasaaraha xilligaasi Najmuddin Erbakan oo saaxiibo dhow ay yihiin madaxweynaha dalka Turkiga xukunkoodana waxaa sida la sheegay xaqiijisay maxkamadda racfaanka sanadkii 2021 afgambigii dalka Turkiga ayaa markii dambe loogu magac daray afgambigii casriga ahaa ee ka dambeeyay sababtoo ah si ka duwan kuwii hore ee militariga dalka lama isticmaalin taangiyo ama askar dawladii Erbakanna waxa lagu bedelay isbahaysi uu magacaabay madaxweyne Rajab Tayyip Erdogan ayaana maanta ku dhawaaqay in dhammaan saraakiishaani 7 gaarayso cafis loo fidiyay lagana sii daynaya xabsigii ay ku xirnaayeen maadaama horey xabsi daa'in loogu xukumay dhinaca kalena dawladda Ruushka ayaa waxay ku dhawaaqday in toddobaadkan uu u ahaa toddobaadkii ugu weerarka adkaa oo ay howlgallo badan ay fuliyeen ciidankooda waxay sheegeen in ka badan 12 magaalo ama tuulooyin iyo deegaano dhowr ah ay gacanta ay ku dhigeen inta badanna magaalooyinkan waxay ku yaalaan gobolka Kharkov sidoo kalena waxay sheegeen ku dhawaad 9500 ciidanka Ukraine ka tirsan inay dileen toddobaadkan wasaaradda gaashaandhigga ee dawladda Ruushka qoraal ka soo baxay ayaa sidaas lagu sheegay waxaana ay yiraahdeen waxaan burburinay xarumo talis dhaxa ah oo ciidamada Ukraine ay lahaayeen garoomo diyaaradeed oo isticmaalayeen militariga nidaam difaaceed hubka noocyadiisa kala duwan xarumo lagu keedinayo hubka ay reer galbeedka ay siiyeen Ukraine iyo xarumo kale sidaas ayaa lagu yiri qoraalka oo ka soo baxay wasaaradda gaashaandhigga waxa intaas ay ku dareen in 12 magaalo ay gacanta ay ku dhigeen oo gobolka Kharkov ka tirsan sidoo kale waxay sheegeen inay gacanta ku dhigeen in ka badan 1175 askari oo kamid ah ciidanka militariga ee dawladda Ukraine qalab kale iyo 10 taangi ayay sidoo kale sheegeen inay qabteen intii uu socday howlgalka toddobaadkii la soo dhaafay waana howlgalkii ugu cusla oo ciidamada Ruushka ay fuliyeen sida lagu sheegay qoraalkan oo ka soo baxay wasaaradda gaashaandhigga ee dawladda Ruushka arrimahaas ayaa gobolka ugu waaweyn waxyaabaha ka soo kordhana barnaamijyadeena kale ayaan kugula wadaagi doonaa markaan aan u soo laabano dhinaca iyo dalka Falastiin ama magaalada Gaza Banana Bay waxay ku sahlaysaa in ehelkaada oo jooga Soomaaliya, Ethiopia, Kenya, Suudaanta Koonfureed, Djibouti, Imaaraadka iyo UK inaad u diri karto lacagta haddii aad ku sugan tahay Mareykanka la soo deg applicationka Banana Bay adigoo kala soo degaya Play Store ama App Store si ehelkaada jooga Soomaaliya iyo Kenya ay durbaba lacagtooda ugu helaan EVC Plus, M-Pesa, Zaad, Sahal, T-Plus iyo Sombank. Banana Bay waxa ku soo kordhiyay xawaalada Tawakkal. Hadda la soo deg oo hel qiimo dhimis 20% ah. Marwa Fertility Center, xarunta daweynta cudurrada keena dhalmo la'aanta. insha Allah waad ku dawoobi la xiriir telefoonada shaashada kaaga muuqdo mahadsanid xamlada mustaqbal waxay hadda furtay diiwaangelinta dadka laga soo xajinayo ee geeriyooday ama kuwa aanan awoodin inay xajiyaan sanadkan waxa lagu sameeyay qiimo dhimis aad u ballaaran waxaana lagu soo dirayaa cadeymo sidoo kale ma doonaysaa fiisaha xajka haddii aad sidatid baasaboorada Yurub Mareykanka iyo Kanada wixii faahfaahin kala xiriir telefoonka shaashada kaaga muuqdo mahadsanid muuqaalkan aad arkayso waa dad badan oo shacab ah oo Falastiiniyiin ah oo ku dukanaya masaajid ku yaala dhinaca koonfureed ee magaalada Gaza gaar ahaan Khayonis salaadii khudbada ee maanta ay halkaan ay ku dukadeen waxaana dhabarkooda ku yaalay masaajidka ay ku dukan jireen ee xaafadda Khayonis halkaas ama masaajidkan oo ay burburiyeen diyaaradaha dagaalka Israa'iil midnimadoodii ayay muujiyeen halkaan ayay salaadii ku dukadeen ee khudbada kadibna way duceysteen iyagoo Ilaahay ka baryay dhibaatada haysata inuu Allah ka dulqaado dhinaca kale xoogagga iska caabinta ee Falastiiniyiinta gaar ahaan garabka Saraayil Qudus Islamic Jihad ayaa waxay ku dhawaaqeen maanta inay bartilmaameedsadeen xarunta taliska dhexe ee ciidamada Israa'iil xaruntan oo ku taala deegaanka Zalata deegaankana waxa uu dhacaa dhanka bari ee magaalada Rafah
waxay sheegeen in ay hoobiyaal ay ku garaaceen maadaama ay heleen macluumaad ku saabsan xaruntan in laga hagayo howlgallada la doonaya in laga fuliyo dhinaca magaalada rafax. haddaba aan marka hore dul istaagno qariiradda wararkii ugu dambeeyey iyo halka la kala joogo, kadibna waxaan arki doonaa khasaaraha guud. halkan waa qariiradda guud ahaan ee goobihii sida weyn loogu dagaalamayay maalmihii lasoo dhaafay, weliba waa dhinaca jabaaliya. wadadan aad arkayso waa wadada salaaxudiin la yiraahdo oo ciidamada Israa'iil aad ay isugu dheereeyeen, waana dhinaca bari ee jabaaliya. halkan loo yaqaano block 4 iyo halkan loo yaqaano block 2 waa goobaha ugu adag ee dagaalada ay ka dhacayaan. ciidamada Israa'iil waxay doonayaan inay salaaxudiin intay ka baxaan ay block 4 iyo block 2 ay hareereeyaan. sidoo kalena eriyadan waa goob ciidamada Israa'iil looga dilay askar aad u tiro badan kadib markii howlgal qorsheysan ay xoogaga iska caabinta ee Falastiiniyiinta toddobaadkan ay ka fuliyeen halkan. waana meesha ay dhaqdhaqaaqa Xamaas yiraahdeen 22 askari ayaan ku dilnay, halka ciidamada Israa'iil ay sheegteen 5 askari in halkan ay kaga dhinteen. wadadan oo midabka huruudka leh waxaa la sheegay in ciidamada Israa'iil dhankooda isku dayeen haddana inay go'doomiyaan iyaga oo laba jiha kala aaday. mid waxay doonayeen inay block 2 dhinacaan ay ka soo galaan intay halkan maraan, midkan kalena waxay doonayeen inay jabaaliya ama xerada jabaaliya ay gudaha u galaan. laakiin xoogagga iska caabinta ee Falastiiniyiinta ayaa gabi ahaanba arrintaasi ka hor istaagay ciidanka Israa'iil. halkan hoobiyaasha lagu soo garaacayna waa saldhigyada ay ciidamada Israa'iil ay ku lahaayeen dhinaca bari ee xerada jabaaliya. markaan haddii aan eegno dhinaca iyo magaalada Rafax sidii ayaa weli loogu dagaalamaya. aagii Zaytuun ayaa daaqada ka baxay. Rafax waxaa si weyn loogu dagaalamaya halkan loo yaqaano wadada la yiraahdo Georgia. wadadan waa goob ay ciidamada Israa'iil ay doonayaan inay isku dhiririyaan. mar walba dhinacan ayay ka soo galayaan xaafadda Salaam iyo marinka Rafax. sababtoo halkan kaga soo galayaan waxa ku yaala halkii loo yaqaano Karim Abu Salim. marka ay halkan ka gudbaan waxay doonayaan halkan inay tagaan. bartaana waa goobta ugu adag ee in ka badan malaayiin ruux oo shacab oo Falastiiniyiin ah ay ku sugan yihiin. marka si aanay halkaas u gaarin xoogagga iska caabinta ee Falastiiniyiinta wadadan Georgia la yiraahdo ayayba ku celiyeen oo isbaara ay u dhigteen ciidanka gumeysta, taas oo ka dhigan haddii halkan ay ka gudbaan marinka Rafax si toos ay u tagayaan, weliba waxay tagi doonaan goobihii ay dadka rayidka ahaa ku sugnaayeen. inkastoo ku dhawaad 500,000 ay halkan ay isaga barakaceen oo Qaanyoonis iyo deegaano kale ay ku laabteen, haddana xoogagga iska caabinta ee Falastiiniyiinta halkan cashir badan ayay ugu dhigeen ciidanka gumeystaha. haddaba maxaa soo kordhay marka saacadihii la soo dhaafay? xoogagga iska caabinta ee Falastiiniyiinta gaar ahaan garabka Al-Qassam oo dhaqdhaqaaqa Xamaas dhanka militariga u qaabilsan waxay sheegeen dhinaca bari ee xaafadda Jabaaliya in ay ku bartilmaameedsadeen ciidanka Israa'iil, weliba waxay isticmaalayeen qoriga sniper ama shiishka. waxay sheegeen tiro ciidamada ka tirsan inay halkaasi ay ku dileen, inkastoo muuqaal aanay soo bandhigin maanta. sidoo kale Israa'iil Qudus dhankooda muuqaalo ay soo bandhigeen, laakiin dhaqdhaqaaqa Xamaas weli muuqaalo ma aanay soo bandhigin oo taxaadirkan aan barnaamijka ku guda jirno. laakiin waxa laga yaaban yahay tallaabada cusub oo ay qaadayaan ciidanka Xisbullah oo la soo baxay hub cusub iyo farsamooyin ay kula dagaalamayaan ciidanka Israa'iil ee ku sugan dhinaca xadka. Xisbullahda Libnaan ka dagaalamaysa waxaa la sheegay toddobaadyadii la soo dhaafay in laga yaaban yahay. weliba waxaa laga yaaban yahay wax kale maahan, waa diyaaradaha droniska oo ay isticmaalayaan. waxay ku burburiyeen saldhigyo dhowr ah oo ciidamada Israa'iil ay lahaayeen, si gaar ahaaneed saldhigyada ku yaala dhinaca xadka. waxaa la sheegay in ay sidoo kale la soo baxeen raadeero qaban karaya gantaalada ka imaanaya dhinaca Israa'iil, maadaama Israa'iil dhankooda ay gantaalo ku jawaabaan ayna ku weeraraan gudaha Lubnaan. waxyaabaha kale ee cajiib kale waxay tahay inay beegsadeen 2 saldhig oo muhiim u ah ciidamada Israa'iil kuna yaala dhinaca xadka Lubnaan iyo Israa'iil ay wadaagaan. mid ka mid ah saldhigyadaasi wuxuu ahaa saldhigga ciidanka cirka isticmaalaan, halka saldhigga kale uu ahaa midkii lagu keydinayay diyaaradaha droniska ee sahanka iyo howlgallada ka fulinayay gudaha dalka Lubnaan. marka waxay Israa'iiliyiinta taagan yihiin halkay Xisbullah ay kala soo baxayaan awoodda intaan la eg. qabiilada dhinaca militariga ee falanqeeya arrimahana waxay leeyihiin tani waa fariin loo dirayo Israa'iil, fariintan oo dhinaca Xisbullah ka imaanaysa oo ah haddii lama huraan ay noqoto waxaan idiin geysan karnaa duqayn intaan ka badan, waan idin baabi'in karnaa. taas ayay ka dhigan tahay. sababtoo maalmihii ugu dambeeyay Xisbullah waxay ka warhaysay dhaqdhaqaaqa ay ciidamada Israa'iil ka sameynayeen dhinaca xadka. dhinaca kale sawirada dhinaca satellite-ka ee la soo qaaday ayaa muujinaya in militariga Mareykanka ay dhameystireen dhismaha dekadda sabaynaysa ee magaalada Gaza.
waxaana lagu waramayaa maanta in markii ugu horreysay la bilaabay dhaqdhaqaaqa dekeddaas iyada oo maraakiib gargaar sidana ay ku wajahan yihiin dekeddan sida lagu sheegay qoraalkan oo lagu daabacay warbaahinta Arabic Post. dowladda Mareykanka ayaa markii ugu horreysay waxay shaacisay in maraakiib sida shixnad gargaar ah ay markii ugu horreysay dhaqaaq ay bilaabeen kuwaas oo ku xiran doona dekedda sabaynaysa ee laga dhisay magaalada Gaza. sidoo kale waxaa lagu waramayaa in markab laga leeyahay dalka Ingiriiska oo sida ilaa iyo 100 tan oo gargaar ah inuu ka soo dhaqaaqay dalka Qubrus ama jasiiradda Qubrus maalintii Arbacada ee la soo dhaafay. markabkan waxaa ka dulbabanaya calanka dalka Mareykanka waxaana uu ku soo wajahan yahay dekeddan sida degdeg ah looga dhisay magaalada Gaza. aaga dekedda laga dhisayna waxaa ku aadan sida la sheegay goob laga helay shidaal aad u tiro badan oo weliba dhaqaale ahaan lagu qiyaasay ilaa iyo 500 oo bilyan oo dollarka Mareykanka. Mareykanka waxa uu shaaca ka qaaday maalin kasta ilaa iyo 90 gawaari oo gargaar ah in laga dejin doono dekeddan ilaa iyo 150 in la gaarsiiyo ay u badan tahay. yacni markab ka yimaada dhammaan waxyaabaha uu wada 90 ilaa iyo 150 gaari inay gaari doonaan ay u badan tahay lana gaarsiin doono qaybaha kala duwan ee magaalada Gaza. inkastoo qaramada midoobay ay leedahay maalin kasta 500 oo gaari ay u baahan yihiin dadka shacabka ee Falastiiniyiinta maadaama gargaar aad u tiro badan ay doonayaan. caqabado badan ayaa jira inkastoo Mareykanka hadda uu dhisay dekeddan haddana caqabadaha ugu badan waa dhinaca hawada. sidoo kale qatarta ugu weyn waxay tahay sidii shidaal tiro badan dekeddan looga soo dejin lahaa si looga shaqaysiiyo xarumaha caafimaadka ee ku yaala magaalada Gaza. waxyaabaha ka soo kordha barnaamijyadeena kale ayaan kugula wadaagi doonaa insha Allah.